السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشافي official aniga shaafiya kusoo dhawaada asxaabteeda cusub ee imka igu soo birtay waxaan leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada kuwii hore ila jooga waxaan leeyahay ila sii jooga in badan waan qaraaxisan doonaa waan qosti doonaa waan kala war qaadan doonaa maanta ama caaw waxaan doonayaa inaan ka hadlo dhibaatada soo gaadhay ama basaynu aragno sawirada aynu arki doono ama fiidiyoda arki doono Idris Cabdi markii aan anigu arkay Idris Cabdi nabarada ku yaala hortay marka hore waxaan leeyahay hadii Ilaahay baa inagu xaqiiqda hadii ay xaqiiqo tahay arintaas run tahay Ilaahay ha caafiyo nabar xaqdarin Ilaahay ha dhigo arintaas laakiin hadii ay been tahay waxa weeye wax fiican maaha wax aan maxay hayday aan leenahay Idris dhiiqad caga kula jirtaa ka joog kuma fiicna magacaaga aaminaadaada in lagu aamino oo dadku ku aamino oo ku daawadaan kalsooni dambe ma sii galayso kalsoonidu ka yaraanaysa qofku markuu dhaw wixii beenta soo dhigay rinjiga isoo marmariyayba waa la sameeyaa nabaradan wax waa la sameeyaa dhowr qaab lagu sameeyaa jira bal haddaba laakiin anigu hadii ay arintan say ila muuqato ama aniga macquulka sa igu muuqato ugu fiican baan uga hadlayaa وانا كسي اففتو waxaan hadii arintaas ay run noqoto Ilaahay ha booga dhayo bal hadda fiidiyowga ugu horeeya ee aan inooga hayo Idris Cabdi ayaynu wada eegi doonaa idinkana wixii idinka sidii aan u fikiray hadii aad si ka bedelan aad u fikirtaan dadku waa kala maskax waa kala fikir waa kala aragti waxa weeye ayga qaadanina inaan si kale ama u jeedo aan Idris aan toos oo abaar laakiin si aragtidayda ayaan badoonya ka hadlo hada fiidiyoo ugu horeeya baan aan hawshaas xaga joogay waxaas ani u gaabna kaaso yani maxaad ugu sheegaysaa meesha aan joognay waxaas u leeyahay meesha aan joognay waxa maxaad ugu sheegay yani dad si dadkan ay dad istagaalnasanayeen oo kale oo loo sheegay meesha aan joogno oo inoogu yimaadeen maxaad u sheegaysaa meesha aan joogno marka hore يعني نبردن بنسوق جالسين أما مش ساس تلمانتي عاد سيسبي نقص عبارين أما نقص الدونين أما نقص هلا بكرة جنتان قفكم مركا أو نبرك كودعه أو مكواح عملنا يدرس أوليه هو بانجد أما واح أما هو بانجد بوقتها نبرك سيدو يالله سميسك أو يالله وحوي جدك بلا آذنكو meesha markuu wax kaga dhaco waad aragtay meel hadii wax kaga dhacaan way bararaysaa af bay yeelanaysaa meesha labada dhinac af bay yeelanaysaa barar bay yeelanaysaa mid kale hatta halka haduu nabar kaga dhaco dhinaca kale barar yeelanaysaa sidaa daraadeed ani waxa ila muuqataa in ay tahay waxanu wax samays ah oo aan ahayn nabar ku yaala saafana ku fiicanta ilaahayna saa uga dhigo ilaahayna sida uga dhigo dhaawac ma fiicnee هاي ساعة وقديكو بالفيديو قلبات أو كان كيرا دير كان بوجن كرتان إنس ليجنا
si fiican buu aragtay maamulaya horta qofkan dirisle dhayaya ama daweynaya horta qof dhakhtar ah ma aha. 3 sababood. sababta koowaad gacmaha waxa uu jiray glovesyadii way iska saartay inay bedesho way ku fiicnayd laakiin inay saarto ma ahayn. qofka marka uu dhiig leeyahay ama uu nabar ku yaalo waa qasab in glovesyada la xidhnaado ilaa inta ay dhamaanayso shaqada aad ku jirtaa. waan ogtahay in xanuuna jiraan inuu dhakhaatiirtu markasta dad badan la kulmayso in ay taxadir ay qabto. waa ta koobaad. ta labaad nabar marka la dhayayo ama lagu dhajinayo balastarka balastar weyn oo intaa leeg laguma dhajiyo. nabarku waa halkaa. balastar weyn oo intaa leeg laguma dhajiyo. balastar yar oo nabarka loogu talagalay inta uu leeyahay seeskiisa leeg in yar dhinacyada u dhaafaya baa lagu dhajiyaa. laakiin faashad intaa leeg la isma saaro. waa tii labaad. tan saddexaad lama nabarkii sanka saasaa la leeyahay sidaasaa la meeshii sidan ku qabanaysa eega saasay leedahay oo saasay leedahay oo saasay leedahay oo ma aha. isagu qofku nabar baa meeshii ku yaala markay tuujinayso uu damqan lahaa xataa indhihiisu isma bedelayaan. marka kolley anigu dirisle waxaan odhan lahaa arrintaas haddii ay jirto oo ay dhab tahay anu cid is hayeen ma garanayo. maanta cid is hayeen oo uu leeyahay maanta halkaasay dadka ay raadsanayay bay ahaayeen sababtaasaa jirtay dhibaataasaa jirtay ma jirin. CK bay is hayeen markii ugu dambeysay ismana lihi CK baa dad ugu dalbanaya Nairobi oo halkaa maxay wax ku gaarsiinaya. haddaba muuqaalkan anigu saan u arkaa waxa weeye wax aan xaqiiqo ahayn. wana arki doontaan wax xaqiiqo ama noqonayso bari YouTube wuxuu ka maqnaadaa waa macaawa oo ku dhajisantahay bahashu wax laga yaabo in bahashan la hor yimaado bari isagoo leeyahay nabarkii uu bogsaday ay arki doontaan inta lagu qiyaasay nabarkii inuu ku bogsanayo xataa hadhowto nabarku marka uu bogsado waxaynu ka rabnaa calaamadii nabarkii bogsaday ee isu yimi lama arki doono haddii aanu nabarkaasi aana jirin xariiqdii lama arki doono. imika soo qaad nabarkaas aniga wuxuu ugu dhacay 12 sano ka hor waan ugu yaala wakaa nabarka marka uu kugu dhaco marka uu bogsado xataa xariijintiisii ama dakharkii ama nabarkii isagoo cad buu meesha ku oolaya. taa haddii laga waayo dirisle maanta sida loo aaminsan yahay ama loo daawado looma daawan doono. marka waxaan odhan lahaa dirislow arrintaa hadda caawa waa baraanka nagu dheh si aanu u aqbalo ama aanu yani dee anahna yani sheekada soo gabanaysa laakiin haddii caawa nagu dhaafto oo ay beri nagu gaadho habeen dambe nagu gaadho run baan u qaadanaynaa in arrintaas aad run uga jeeday aaminaadaaduna way daciifisaa. asxaabtaada waxaan leeyahay subscribe-ta like-ta share-ta commentiga waxba ha ilaawina. gurigu waa gurigiinii waa milinkiinii waaye soo dhawaada dadka cusub dadka hore waxaan leenahay nala sii joogaa noo dulqaata intana barnaamijyo kuwan kasii fiican aanu idiin soo gudbinayno. waxaan leeyahay kaga tagay caawa sidaa iyo nabadgelyo.